inaad adduunka la jaan qaado oo adduunka wixii ka dhaca la socoteed waa ku muhiim mar walba oo suuqa intaad soo galan ka hor waa inaad warbixin walba oo suuqa dunida ka dhacaya waa inaad ka warhaysaa waxaa jirta warbixin ka timid dalka Mareykanka oo Mareykanka waxa uu galay xaalad xiritaan oo la yiraahdo governmental shutdown kadib markii madaxweyne Donald Trump iyo Congress-ka ay ku guuldareysteen inay isku raacaan miisaaniyadda lagu sii wadi lahaa adeegyada dowladda khilaafka siyaasadeed ayaa sababay in dowladda aysan awoodin inay maalgeliso hay'adaha iyo barnaamijyo badan oo aad u muhiim waxaa la filayaa in ku dhawaad 750,000 oo shaqaale oo federaal ah shaqada laga fasaxo qaarna laga yaabo in ay si rasmi ah loogu eriyo shaqadooda shaqaalaha qaar kalena sida ciidamada iyo adeegyada degdega ah waa inay shaqada sii wadaan balse mushaharkooda ayaa dib u dhici kara xiritaankan ayaa si toos ah u saameynaya adeegyo badan oo ku tiirsan yihiin shacabka dalkaasi waxay arrintaani keeni kartaa in dhaqaalaha dalkaasi uu hoos u dhaco in arrintaani hadda ay sii jirtana ay noqoto mid halis ku ah suuqyada saamileyda sidoo kale saameyn karta suuqyada forex iyo suuqyada laga trade garay marka intii aad hantidaada iyo wax walba aad kuway lahayd waxa ku fiican inaad suuq indheendhaysid sidoo kale news ayaa jira sidoo kale maanta waa October 1 suuqa markaa isha ku hay wixii soo baxo nuqul ah ka warqab aad baad mahadsantiin